gabadhan aa u jeedid waa Soomaali, ninkaana waa Oromo, waana ninkeedii. meeshay ku nool yihiin waa America. waxay u dhashay 3 caruur ah. guri ayada ay leedahay ayay degan yihiin, ayada iskale guriga. ninkan waa timajare, maadaama uu timajare yahay, intay baxday bay Afrika aaday. waxay u soo sameysay shahaado oo lagu aqoonsanayo ninkan in uu timajare yahay. Nairobi ay tagtay, shahaado u soo sameysay, America ku soo noqotay, business oo timajare ah ay u furtay. walaalkiis asaga la dhastana waxay u furtay dukaan weyn, ganacsaday ka dhigtay. cidda dhan ay maalgelinayso, walaalaheeda joogo, waxna ma siiso. okay, ayadoo saas ay xaaladda marayso, ninkan extiisa ayaa xiriir uu la sameeyey. walaalkiis asaga la dhashay ayaa la degan ayaga. ayada walaalkeedna sidoo kale ayagoo la degan yahay. intuu qabtay buu walaalkeed guriga ka ceyriyey. waa walaalkeed ayada la dhashtay ayuu guriga ka ceyriyey. ayadana dumaashiyaalkeed business bay u samaysay, dukaamay u furtay, way u kala kicisay, cid ganacsatay ka wada dhigtay. ninkan asoo shalay zero ahaa, waxba meesha aanan ku haynin, buu heblaayadan bartay, way isguursadeen, 3 caruurna way u dhashay. guriga ay degan yihiinna ayadaa iskale, ma aha asaga. uu ku darsaday hataa lama leh, ayadaa milki u leh guriga. alcamuum, ninkan wuxuu u naqday extiisii, businesskii uu kala wareegay, gurigii uu kala wareegay, dukaankii uu kala wareegay, timajarihii awalba asaa lagu qoray 000 buu soo istaajiyey. wuxuuna u naqday extiisii. hadda waxay taagan tahay Soomaaliyay ilmaha ila koriya, laa ilaaha illa allah Muhammad rasuulullah. ayadoo u jeeda walaalaheed Soomaaliyeed bay ka carartay, Oromay dalaq u tiri. waxay ka dheeftay in gurigana lagala wareego, timajarihii lagala wareego, dukaankiina lagala wareego, walaalkeedna gurigeedii ayada milki ee u laheed laga ceeriyo. markay xanaaqdayna asaga walaalkiis ee guriga ka ceerisane oo u soo qaatay hub, maadaama hub sharciyaysan uu haysto inuu dilo oo damcay. naag caddaan oo ayada saaxiibo ay yihiin bay meel dheer ka aragtay oo u soo socoto. waxay ku tiri, war carar, hubkan wadatid yaan lagugu arkine, naagtan caddaanka ayay ku arkin. ninkii ayada dili rabeena saas ay tahay badbaadinaysaa. halahaas waxay ilaalinaysaa ninka ayada saas u galay. walaalkeed guriga ka ceyriyey, kala wareegay guriga villada ayada ee laheed. 16 saac ay shaqo jirtay, way isciqaabtay, dhabarka kuma yaal, uu kala go'an yahay. 16 saac iyadoo shaqaynaysay gurigaas paymentiga ahaa asaa la wareegay. timajarihii asigaa magaciisu kula wareegay. dukaankii seedi dumaashigeed ee u furtani ayagaa la wareegay. alcamuum, qofkii intaas u dadaalaysay waxayna tiri extiisa wayna saxirtay, yacni noloshaanay noo quuri weysay, ninkii iga qaadatay. laa ilaaha illa allah. qofkii intaas u dadaalaysay, Afrika ay u tagtay, u soo samaysay shahaado caddaynaysa in uu timajare yahay. ninkan waa shahaado caddaynaysa inuu timajare yahay, siduu businesska u furto looguna ogolaado. Afrikay tagtay, Nairobi bay ka keentay shahaadadii. finally wuxuu u noqday extiisi oo Oromo ahayd ayadana. waxayna tiri extiisa wayna saxirtay, yacni noloshaanay noo quuri weysay, ninkii iga qaadatay. laa ilaaha illa allah. ayadan intay soo istaagtay 000 3 caruur ah, aabbahoodii ka cararay, Oromona yahay, una wareegay naagtiisa hore. subxaanaka yaa cadiim. bal iimaanka beesho, walaalkaaga gurigaaga adiga aad leedahay laga ceerinaayo, damiirkii aaway. waxay tiri, niyow walaalkay familkeena ka dhex saar, ani adiga ayaa isqabna, qoyskeena labadeena bis ha ku koobnaado. markay saas uu maqlo hubuu soo qaatay, inuu dilow damcay. waxay ku badbaaday naag caddaan oo ayada saaxiibo ay yihiin darteed ayay ku badbaaday. maahina saacaddan waxay ahaa lahayd nurey salaam calayk.